Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay maanta bandhig carwo caafimaad oo lagu qabtay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay muranka ka taagan dhinaca doorashooyinka Somaliland. Madaxweynuhu waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay hadalka ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee la xidhiidha diidmada arrintaasi dhinaca doorashooyinka la xidhiidha. maalmahan waxa maqdinta waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacweeyay sharciga la jabiyay raacimada go'aanka baarlamaanka soo baxay dartiga sharciga laga deeday madaxweynaha maroosaday qabtaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax soo inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay lahayd komishanka cusub ee doorashada shaqeynayna waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyay heshiiska xisbiyada حلال افتين بالقشة حسبه ده وحشي هذه طلب هذا بدو واحد هذا واحد حسبه كويشيا إن عن ابنه هراء كوميشن كان لبسه عليه فوق بالقدي هذه قلب كاس قرارة أحياء ولبوشي أنا مرسح قلب كان مرو كمان نعيش فيني ومشرع لا هي هذا هي رمضان هو صبريان يعني قلب هذا شيء ما يخدر درني هذا مشرين والجيش شيء يروح ورثة ومضى مركز هذول سووا حرب شيء قلب كان لبوشي waxa lagu heshiiyay in la soo doorto xibro cusub sababta loogu dari waayay ku horeeyay lagu soo celinaa waa sharci aanan dhaafin haddaan xisbada nahay ayaa yaala xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqrada afraad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sanadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqti ka dhamaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxay وحصاحي مدارة Cabdiraxman محمد عبد الله gudoomiyaha xisbiga qaranka wadani gudoomiyahii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddiga gurtiga wax islaamina saxiixiisa wala raacaya isaga saxay madaxweynaha gudoomiyaha Cabdiraxman ummadda soo bandhig labada qodob hadda wax ka jiraan ka soo celi ee turxaan la'aan way xalal tii balaqasha in dadka la tawreeyay bah qodobka labaad waxa uu yiri runta anaga diidaha dawladda hal lagu dar maayo ama xubnaha hadii lagu darana warshay galbeeyay waxa daba socoto lagu eedeeyay madaxweynuhu talooyin murarsada waa kaliitan istiraam ogola bal amuurta ilaahay hadaba qodob sukeelay sharcigi oo isagu saxay komishanka qolka tanaad waxay laba waxa soo jeedinay gurtiga mid waxa soo jeedinay xisbiga wadani mid mawcid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuwii midna arrintiisa ku fargelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyay wacid ku keenay waan gudbiyay gurta labadeena waan gudbiyay saddexdii aniga ayaan noqotay waan ku daray waxa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo oo ma u bareero أنا أقدر أقول ريحانية أما بالعدان قدوة وحقيقة ضمبية لما إسبارو كنت إذا هو ساب برلمانك يقول وينها برلمان كل مية استيطبف ولا بدي أنت بوا مريا وادو هذا ودن إلى أرتاح سقالة هاي كنت إذا برلمان كل شيء ديس برلمان كله يعلي يير من هو دليل التأثير كوين برلمان كيير مايو حق الوقت Cabdiraxman ka filayay inuu wanaagsan waqtiga hore qodob jeediyay tahay laga filayay mudane Cabdiraxman adoo gudoomiyaha baarlamaanka ugu weynaa saxaada ee dalka 10 sano sharciga u saxeeyay adoo gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta sharafeed milkiye maamusuule ee arrinta ka fiirsan yeeri maayo baarlamaanku waa arrin adag madaxweynaha Somaliland waxa uu eedihii ugu culisaa u jeediyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inuu amaan darro ka wado maamul goboleedada dalkaasi arrintaasi madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay inuu ku soo wado waa sida hadalka uu u dhigay Somaliland kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalmo buu xidha waad arkaysaa halka la isla maraayo iyo qarax ka taagan uu samarada dagaal baa ka socda puntland dawladdu soo wata maanta la qarxiyay waxaana wadada dawladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas oo dhawada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamayay waxay ka wadaa way waxa soo tabar
كل وقت صوت برا سوق سجى جربسها Somaliland صوت يارتا ولا هدي وكسر مقطع Somaliland نوع كذا مرتين على صوت يارتا هو أرجناها وحصوت فرماجة باتري كوسار محمود تلفيش كسهن هرجيسا